geedkii laantaha agtiisa waxaa ka soo baxay laan yar oo kale. Laantii yarka ahayd markii ay ka soo baxday waxa ay bilaabeen inay isku soo dhowaadaan. Marba marka ka dambeyso sidii ay isugu soo dhowaanayeen waxay bilaabeen inay isku milmaan oo ay isku duumaan ilaa markii qoraxdu soo baxdo dhalaalkoodu dadku ay aad u cajab geliyaan. Waxaana mar walba la yaabi jiray geedahan sida ay isugu milmayaan. Sidaa iyadoo ah geedihii waxay bilaabeen in ay ubax saaraan, ubax aad u qurux badan. Ubaxii kadib maxaa imaan kara? Ubaxii waxaa ku xig miro aad u qurux badan, kuwaas oo ka soo baxay geedihii labada ahaa ee awal ka soo bilowday hal geed oo ay ku xigsatay laanta kale. Baby, ma dareemi kartaa sheekada waxa ay ku saabsan tahay? Geedka meesha cidlada ku yaalay waa aniga oo ah nolosheedii oo meel cidlo ah ka soo bilaabatay, kadibna waxaa ku soo biiray adiga oo ahayd laantii agteeda ka soo baxday. Kadibna waxaan bilownay in aan qalbiyadeena isku keeno ilaa ay hal qalbi wada noqdeen. Kadib miro iyo ubaxii waa tan maanta aynu haysano oo aynu nahay famil buuxa. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan maanta nahay famil buuxa.